qarannimadu waa hibo qaadirkeen bixiyo bulshadii hanataana ay qiimuhu wato quruxna barkato sidoo kale waa dhufayska laga galo burburka qabyaaladda tahriibka musuqa iyo maamul xumida waa habay adag tahay dib u helideed haddii la dayaco duunyana la dhaafsado barnaamijkan qarandoon waxaynu ku iftiimin doonaa qiimaha ay qarannimadu leedahay baahida uu dadku u qabo sida lagu heli karo iyo inta ay inoo jirto barnaamijkan oo noqon doona mid taxana ah waxaan qaybtiisa koowaad idinkaga soo tabin doonaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaanu ku wareysan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada annaga oo booqan doona goobaha waxbarashada caafimaadka dalxiiska iyo goobaha ay dadweynuhu ku kulmaan annaga oo soo tabin doona aragtiyaha kala duwan ee dadka shacabka reer Boosaaso uu qabo runtii qarannimadu waxa weeye waa bulshada waxa ay ku nooshahay weeye bulsho haddayan qaran lahayn qaran hadduusan jirin bulshadaasi ma jiri karto aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cali Axmed Dhowre waxaan ku naanaysanahay oo ku magac dheerahay Suldaanka Antara waan soo dhaweynayaa barnaamijkan qarandoon waxaana ka mid ahay mar walba wax u taagan qiyamka Soomaalinimo iyo qarannimo wax kale ay deeqaamo jirto iyo barnaamijka qarandoon oo sida xaqiiqda ah ay Soomaalinimadu ay Soomaalidu yihiin baahida kaliya ay qabaaniin ay u baahan yihiin ay tahay qaran midaysan oo xoog leh oo awood leh ay u baahan yihiin dhammaan Soomaalida qaybaheeda kala duwan Soomaalida sida xaqiiqda ah meel kasta ay joogto waxa ku soo jidhay muddo dhowr iyo 20 sano ama 30 sano ku dhawaad ee dagaal sokeeyo ah oo ay ogaadeen in qayb iyo gobol iyo qabiil waxba tari waayay waxba u qaban waayay waxaan halkaan ku soo dhaweynaa qarandoon ku soo dhawaad markii xafiiska ururka dhaqaatiirta gobolka Bari mar labaad iyo mar saddexaad xamud wax ka dhawaajisay in qarannimadu ay meel gudaweyn tahay oo aad loogu baahan yahay waxa ka mid tahay waxa tahay xoghaynta ururka dhaqaatiirta Puntland gobolka Bari aad baa ugu faraxsanahay la kulankaaga iyo waqtiga aan sidoo kale kaga mahad celinayna waxaan ku weydiiyo qarannimada waa qorshe diib si loo heli lahaa oo wada dheer baa loo maraa ma isleedahay meel wanaagsan bay maraysaa maanta qarannimadii inaan dib u helo xaqiiqdii wallahi waad u jeedaa Yaasir maanta meesha wax marayaan iyo meeshan ka soo dhaqaaqnay waa aragtaa horta bal xorriyadeena ma hadda helnay waxa qiilqiil ku jirtay markii hore xorriyadeena dalkeenu waxa uu muddo la daala dhacay dawlad la'aan dadkeenu wuxuu muddo dayac dareerayay daafaha dunida kadib burburkii qarannimadeena qabyaaladii ayaa xoogsatay waxa soo ifbaxay hogaamiye kooxeedyo arxan daran geeridii ayaa badatay kufsigii gabdhaheena ayaa caado noqday qalinkii ayaa la tuuray deedna qorigii ayaa la barkaday jaamacado qabyaaladeed ayaa laga aflaxay gogashii balaayada ayaa la fidiyay wadadii dib u socodka ayaynu cagta saarnay balse nasiib wanaag ku dhawaad 30 sano kadib burburkii qarannimadeena waxaa hoggaanka dalka hantay madaxweyne muddo la sugayay Soomaaliduna ku suntay sahankii yimid saacadiisii balanqaadkiisii u horeeyay ayaa ahaa inuu soo xuli doono ra'iisul wasaare ka wanaagsan si ummadan daashay oo muddada rubco qarniga qarandoonka ahayd ay ugu dhawowdo rajadii ay ka qabeen soo laabashada qarannimadii duugowday inta annagu aan joogno xukunka waxaan idin ballan qaadayaa inaanan aqbali doonin in nala cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantii
inkastoo la ankiri karin lana ilduufi karin in madaxdii ka horeysay kuwa hadda talada haya ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen dalka, balse shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa badankood qiray dowladda haatan jirta inay soo nooleeyeen rajo muddo badan dugneed oo waayo tira beela qaadatay. bismillahir rahmaanir rahiim, alxamdulillahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin. magacaygu waa Cabdicasiis Saalax Ismaaciil, kamid ah dhalinyarta ku dhaqan gobolka Bari, gaar ahaan xaruntiisa magaalada Boosaaso. Soomaaliya sida markii la eego arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya waxay kamid tahay wadamada burburay ee dagaalada sokeeye ka dhaceen 30 sano ugu dambeeyay. dowladda Soomaaliya 30 sano ugu dambeeyay waddanka Soomaaliya waxa ka dhalanayay dowlado kala duwan oo kala dambeeyay oo qaarkood ku meel gaar ahaayeen. laba dowladoodna waxay ahaayeen ku meel gaarka ka bixin. aniga shakhsi ahaantii markaan aragtideeda cabiro Cabdicasiis ahaan dowladdan hadda garwadanka ka yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xurmadle ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxay muujiyeen shacabka Soomaaliyeed dowladnimadii rajadii ay ka dhigeen way ka rajo dhigeen dadka Soomaaliyeed in la helo dowladnimo. laakiin hadda waxa moodaa inay muuqato rajo dowladnimo, in ay muuqato iftiin dowladnimo, in ay muuqato qarannimadii Soomaaliyeed iyo sharafkii iyo cisihii ay ummadda Soomaaliyeed ku lahaayeen caalamka. waxaa maanta wadan walba ka babanaya calankeena Soomaaliyeed. waxaa maanta muuqatay qarannimada iyo astaanta Soomaalinimada. waxaana ka qaatay kaalinta koowaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo noo soo xulay ra'iisul wasaare ku habboon shaqadan, ra'iisul wasaare karti badan oo iyo golo wasiiro oo ah golihii wasiirada ugu mudnaa intii dowladda Soomaaliyeed imanayeen. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 3 sano wama zaado ay wada joogaan maalin ma aanan maqal waa iskhilaafeen. mar walba oo dhalinyarta Soomaaliyeed waxa rajo dhigi jiray waxa iskhilaafay ra'iisul wasaare iyo madaxweyne. laakiin waxa moodaa maanta inuu albaabkaas naga soo xirmay oo noo furmay albaabkii qarannimada, oo noo furmay albaabkii dowladnimada. waxaan rajaynaynaa in sanadka dhimanna ay ku wada dhameystaan guul iyo barwaaqo. waan rajaynaynaa inay noo soo noqdaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. guul ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. marka alxamdulillaah rabbil caalamiin, maanta waxaan haysanaa saansaan wanaagsan iyo dowlad maanta aan leenahay. marka laga soo tago dowladdii dhexe 30 sano kadib, maanta waxaa noo soo ifaya waxa weeye waa qarannimo. maanta qarannimadaas ayaa waxa loo baahan yahay inaynu ilaashanno. waxa dirna hor yaalla waxa weeye maamulkan ee dowladda federaalka ah, xukuumaddan oo hogaaminayo ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo. run ahaantii aad iyo aad ayaanu ugu qanacsannahay qaabka wanaagsan ay wax u wadaan. waxa weeye waa maamul iyo hanaan maamul ama system isku xiran ku dhisan wada tashi iyo dhammaan hoggaanka oo isku xiran. intaasoo idil waxayna tusinaysaa horumarka ay ku socdaan amaba ay dalka ku hogaaminayaan. maanta wadanka waa arkaysaa meesha wax marayaan, ituso itaabsi weeye waxyaalaha la sameeyey, horumarada la sameeyey, caalamku meeshan ka joogi jiray iyo meeshan maanta ka joogno. madaxda qaranka ugu horeeyay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Khayre, waxaan leenahay horay u socda. waxaan aad iyo aad boqolkiiba boqol maanta dhiirigelin weyn iyo farxad weyn ah inaan maanta jaaniskan haysto ka faa'iideysto, anigoo ku dhiirigelinaya ifafaalaha dowladeed ee noo muuqata. dowladda hadda dhisan muddo 30 sano ah ka bacdi loo arki karo inay dowlad qiyamkeennii iyo karaamadeennii inay soo nooleysay loo arki karo. xaqiiqdii dowladda tani waxayna tustay hadda shaqaynaysa oo hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo tiimkiisuba wax aynu ku farxi karno oo aynu oran karno maanta inaynu dalkii niyad gelinno. inagu xaqiiqda marka laga hadlo dalkeenu waa dal hodan ah, resource qaaliya leh. hadda misaal waxaan joognaa xeebta Boosaaso baan ku sugannahay. waxaanu leenahay badda u dheer Soomaaliya ee caalamka 3300. waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin kolay sida ii muuqata aniga inay nimankan siyaasad cad ka leeyihiin sidayna ku faa'iideyn lahaayeen innaga iyo jiilalkeena ka dambeeyaba. marka xaqiiqdii anigu waxaan qabaa fikirka ah
in la taageero madaxda hadda inoo joogta oo waxa weeye fursad kale la siiyo dawladda hadda iftiimaysa oo insha Allah la filayo inay dib ugu soo laaban doonto doorashada 2021 ka dhici doonta sida xaqiiqda shacabku aad bay u lahan weeyihiin sababtoo ah taa waxa muujinaysa maamuladii soo maray Soomaaliya madaxweynayaashii ka horeeyay Farmaajo iyo ra'iisul wasaarayaashii ka horeeyay Khayre markii hal sano ka hadho dadku iyaga oo waxa weeye dhaliilsan oo dhaliilo badan u soo jeedaan ayay dhici jirtay laakiin hadda waxa muuqata inay dadku wali hilowgii ay markii u horeysay ku soo dhaweeyay ay wali qabaaniin taasna insha Allah waxaan rajayn doonaa in dadka ay riyadooda ay rumoobi doonto halyidirano dadka iyo dalkuba kunagaadayo khayratu aqabo kasidirano alla doorayo okanda cado lagu diirsado hamigiisuna midku durugsayo hana dowladnimo midka doonaye ee u daacado khayratu aqabo allow kula dadaal oo kula dariye allow kula dadaal kolka laga yimaado dadka aan kafoolka u wareysanay waxaa jira shacab badan kuwaas oo taageeradooda iyo dareenkooda ku muujiyay inay ganacsiyadooda u bixiyaan magacyada shicaarka ay ku caanbaxday dawladda haatan talada haysa ee nabad iyo nolol waxaa iyana jira maamooyin dareenkooda ku cabiray buraanbur farmaajiyo khayre khibradoodu waa fogta farmaajiyo khayre khibradoodu waa fogta khadar ilaa keenay weeyahu khilaaf madhi khadar ilaa keenay weeyahu khilaaf madhi qarankii ma qiyaamin qatartiina soo afjar qarankii ma qiyaamin qatartiina soo afjar aqorshii u hagaagiyey oo qaadirkeen laqad qorshii u hagaagiyey oo qaadirkeen laqad warwarag qaaliyahe Soomaaliye qadari allaydin codeeya cirnoonkood maalintii laydin codeeya cirnoonkood daruur baa noo curaatay indhalaahi laga aqbal daruur baa noo curaatay indhalaahi laga aqbal haciiradiina laka qaadiyo culayski jir warciiradiina laka qaadiyo culayski jir dawladii caga dhigatay shacabkiina caafimaad dawladii caga dhigatay shacabkiina caafimaad calanka noo sida casiis baan idin bari farmaajowkii lagu aflaxayoo la wada arko farmaajowkii lagu aflaxayoo la wada arko oo warkii la aaminayo Soomaali ururiyo oo kii la aaminayo Soomaali ururiyo warkii lagu iila noola intifaacsan warkii lagu iila oo la intifaacsan oo islaam baa tahay iimaanku kama tago curaatay caanina waa lalo war dawladii curaatay caanina waa lalo boqolayaal ciirsan oo jeelka wada cami boqolayaal ciirsan oo jeelka wada cami farmaajo soo cayishay baciida shalay dhulka
farmaajo soo caynshay baciida shalaynuka shacabka Boosaaso qaybihiisa kala duwan oo idili